قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى إلهي وحيري سورة الكافرون سورة الكافرون بالله وحين سودكتي مركي قالدي سينك جري ويدي ay difaacna u gali kari weyday doodii adkayda samada ka soo degaysay iyo kitaabkii quraanka ah markay caabin kari weyday ayay shir galeen oo waxay yiraahdeen war ninkan dood iyo hadal iskagama celin karno adiladiisana ma difaaci karno aynu muxooga aynu gallo mahashiis oo aynu niraahno diintaada waan ogolnahay anana diintayada ogolow oo sanadna diintaada caabudno ilaahaaga sanadna annaga nala caabud ilaahyadayada oo sidaa aynu nabad ku ahaano oo aynu sidaa ku wada deganaano oo khamraam labada diinood aynu wada raali gelino oo ilaahayna mar aan caabudna kaaga annana kuwayaga nala caabud. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala ma ogola in wax loo shariig yeelo, maba mudnaba ilaahay in wax la barbar dhigo, ma dhagax baa la caabudi. waxa ilaahay leeyahay nebi muxamedow adigoo xaqii arkay oo ilaahay xaq ahaa ee uunka oo dhan sameeyey aad fahamtay inaad qori iyo dhoobo iyo wax liita aad ilaah ka dhigatood u sujuuddo ma aha sharaftaada. gaalo markay ku maalintii uu ugu baahi badnaa nebigu inuu ciidan helo ee uu Maka joogay ee raggiisana la gumaadayay ee la ugaadhsanayay ayaa ilaahay wuxuu leeyahay wax allaaliya wax heshiisa oo xagga cibaadada kula yeelata qalbi laba qof ruuxna laba qalbi male ma jacala Allahu lirajulin min qalbayn fi jawfi. ilaahna ma raali gelin kartid cadowga ilaahayna ma raali gelin kartid, labadaasi qalbiga ma wada degi karaan. shimbiri laba geed ma wada gurato hablayow laba guri midun galaba yiraahdeen. way garanayaan markay adduunyada ka hadlayaan inaan maxaan ku dhahdaa laba wajiilayna aanay ficnayn. markay cibaadada rabbi timaadana in la yiraahdo khamraam taa la yeeli maayo. tiibu ilaahay isagoo maanta nebigu uu saxaabadiisu ay aad iyo aad u tiro yartahay ayaa la leeyahay maya tawxiidka goos dambeedka ku qabsada. qul waxaa tidhaa nebi allo yaa ayuha alkaafiruun gaala yahay ilaahay abaal yani nicmadiisii qarisay. kaafir waxaa la yidhaha waa yani kafara wuu qariyey weeye. marka kuwan ilaahay nicmadiisa qariyayow laa acbudu ma caabudayo anigu maa shaygan tacbuduuna caabudaysaanee asnaamta ah, walaa antum idinkuna ma tihidin caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu shayga aan caabuday. intaad leedihiin waa laba gardaaqaynaa. walaa ana anigu ma ahi caabidun mid caabudaya maa cabadtum shaygaa caabudeen. waa tawkiid uun adkayn arrinkii hore la adkaynayo. walaa antum idinkuna ma tihidin caabiduuna kuwa sidan ku caabudaya iminka aa u socotaan maa acbudu waxaan caabudayo qaabkanaa u socotaan kuma caabudi karaysaan. lakum waxaa idiin sugnaaday diinukum war diintiinna haystiya dhaqankiinna, waliya diin ana diintayda ayaa ii sugnaatay. suuratu lkawhar waa maki. suuraddan suuratu lkawhar waxay soo degtay markii nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka dhintay wiilkiisii qaasim la odhan jiray. nebigu 3 wiil buu dhalay. wiil cabdullaahi baa la odhan jiray, wiilna qaasim, wiilna ibraahiim. cabdullaahi horu u dhintay, qaasimoo markaa ilmo yarabaa haddana dhintay. waa markii uu nebiga ahaa. dabadeedna nimankii gaalada ahaa aad iyo aad iyo aad bay ugu farxeen geeridaa nebiga ku timi. nin daalim ahaa oo la odhan jiray caas bin waa'il nin la odhan jiroo daalim ahaa ayaa aad iyo aad u tamaashaaday oo xaflada dhigay. markaasuu yidhi bishaaraysta ninkii waa laydinkaga filaaday. mar haddaanu wiil taariikhdiisa dib u xambaaraba aanu haysan oo dabargo uu ku jiro, ninkaas taariikhdaa masixi doonta magaciisa iyo ficilkiisaba u sabro iska badaaye. arrinkaasi nebiga wuu damqay, ilaan bashar buu ahaaye.
goortaasaa ilaahay qur'aan soo dejiyo ilaahay wuxuu yidhi ballan waxaan kuugu qaaday in magacaaguna waaro magaciisana la waayo inteenna muslimiinta nin Caas bin Waa'il yaqaana inaguma jiro in taariikhda uu lagu xuso mooyaane labaduba carab bay ahaayeen labaduba quraysh bay ahaayeen maanta nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam meel kastoo magaciisa lagu qaado waa lagu salliyaya Caas bin Waa'il haddii la soo qaadana lacnatullaahi calayh waxaan ahayn la odhan maayo magaciisina waa baaba'ay ubadkiisiiyo waxay ka tageenna wax allaaliyo wax raandhiisa ma yeelanin markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala nebiga ayuu u qalbi qaboojinaya wuxuu ilaahay ku yidhi innaa annagu haddaan rabbi weyne ahay acطaynaa waxaanu ku siinay ka oo adiga ah alkawhara arrin badan alkawthar wixii badan baa la yidhaahdaa khayr badan baad haysataa nebi allow si gaarana kawthar waxaa loo yaqaanaa waxa weeyaan waa maxaanku idhaahdaa balli ama waadi ku yaalla jannada oo koobabka yaalla ay xidigaha ka tiro badan yihiin caddaantiisuna ay caanaha ay ka cad yihiin macaankiisuna uu malabka ka macaan yahay qofkii mar ka badaana abidkii aanu haraadaynin waana albaabka jannada laga soo galo ayuu ku yaallaa maxaanku idhaha kawthar cid kastoo mu'minina way ka sharaabaysaa markaasaa haraad ugu dambaynaysa oo ciil iyo murugana ugu dambaynaysa waa waadigaa ku yaalla ama balligaa ku yaalla jannada ee muslimiinta oo dhan kii ugu horreeyey ka u dambeeya nebi kastaaba ha u yimaadee way ka wada sharaabi doonaan adigaa kaa ku magacaabanoo iska leh innaa annagu acطaynaaka waxaan ku siinay alkawhara waadiga kawharee jannada ku yaalla adaa iska leh fasalli tuko lirabbika rabbigaaga u tuko salaadda ayaa warwarka kaa bi'in doonte wanxar dhuundhow oo markaad geela gowracaysa dhuuntaa ku dhufo naxri waxaa la yidhaahdaa qaabka geela loo gowraco debxina waxaa la yidhaahdaa qaabka adhiga iyo lo'da loo gowraca debxi baa la yidhaahdaa geelana naxri baa la yidhaahdaa marka waxa inta badan nebigu uu jeclaan jiray xoolaha kay ugu jeclaayeen carabi inuu ilaahay ku caabudo u gowraco fasalli tuko lirabbika rabbiga wanxar oo weliba ilaahay dartii u gowrac geela oo salaadan la sheegayaa waxaa la yidhaahdaa waa salaadaha ciidda oo kale ayay tilmaamayaan inna shaani'aka axadka ku dhaleecaynaya huwa isagu alabtaru isagaa daba go'an isagaa goblanoo abtar waxaa la yidhaha waxaan taariikhi ka hadhin baa abtar la yidhaha inna shaani'aka axadka ku dhaleecaynaya ee Caas bin Waa'il iyo kuwa la midka kuwaasaan taariikh ka tegi doonin baa ilaahay ashaani waxa weeyaan waa qofka cadaawadda iyo xumaanta qofka u hayaaba la yidhaha bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu lmaacuun suuraddan suuratu lmaacuun baa la yidhaahdaa waxayna ka kooban tahay 7 aayadood suuraddani 2 qoys bay ka hadlaysaa oo xumaantoodana ay naga nahyinaysaayoo ay noo tilmaamaysaa waxay suuraddani ka warrami doontaa nimanka kufaarta la yidhaahna aakhiro rumaysnayn iyo siday bini'aadmiga u ihaanaystaan ee aanay naxariis u lahayn ee ilaahay iyo agoommada ilaahay aabbahood ka qaaday ay u dullaystaan iyo munaafiqiinta oo markay cibaadaysanayaan cibaadadoodaasi aanay macno weynba u samaynaynin oo hadday cibaadaysanayaanna ajri aan filanayn hadday iska daayaanna waa laydin ciqaabi aan lahayn waxaa kaloo inoo sheegaysaa suuraddu inaynu waxay naga reebaysaa inaynu xidhiidhka maxaanku idhaha jaarka iyo dadka wada nool in ay wax istaraan in la maanaco ayay taasna way inoo diidaysaa oo irbad baa u yaroo ninka adduunyada ugu qanisani wuu u baahan karaa intuu haystay bay ka qarsoomi kartaa marka adeeg yar lagu weydiisto ama jaararku ilan intaa way isu baahanayaane wixii baahi ee aad gudi karto ha cishanin waa bakhaylnimo qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi ara'ayta bal ka waran alladii midka yukadibu beeninaya biddiini maalinta xisaabta fadaalika haddaan si kale kuugu tilmaamo fadaalika kaas qiyaamaha beeniyey alladii waa midka yaducu tukhaantukhinaya intuu luqunta qabto hamboorriyaya alyatiima agoonka uma naxariisto waa agoon yaroo miskiin ah daca yaducu daca wuu tukhaantukhiyey weeye aayad kaloo qur'aana waxaan ku arki doonnaa iyadoo ilaahay ina odhanayo yowma yudacuuna ilaa naari jahannama dacan waa inta luqunta ruuxa la qabto afweynta loo tuuro oo la tukhaantukhiya daca la yidhaa alladii waa midka
yaducu tukhaantukhinayeen u naxariisanayeen u xoog sheeganaya alyatiima agoonka walaa yaxudu inuu wax bixiyo ha joogto inuu dadka xataa ku dhiiriyo war dadka yani u naxariista ma yeelo walaa yaxudu ma dhiirigeliyo calaa طacaami اlmiskiini miskiinka in la quudiyana ma dhiiriyo tiisa wuu haystaa xataa ta dadka kale inuu yidhaho war wax la baxa taana waa kala bakhayla fawaylun tog naareed wuxuu u sugnaaday lilmusalliina kuwa tukanaya waan tukanaynaa yidhaahda aladiina kuwaasoo hum iyagu can salaatihim salaadooda xaggood saahuuna aan danaynayn salaadanay tukanayaan dan iyo heellaba kama leh cawradaadii mayay muuqanaysaa weysadaadii si fiican ma u soo gudatay maxaanku idhaahdaa yaad ula jeeddaa yaad u tukanaysaa intee in la eg baad ajri ka sugaysa waxaasoo dhan imaankiisaba kuma jiro aladiina kuwa hum iyagu yuraa'uuna haddiiba ay tukanayaanna ha laydin arko u tukanaya wayamnacuuna oo weliba diida almaacuuna adeegyada yaryar ee jaararku uga soo baahdaanna ma hayno oon ay ka soo horayso suuratu quraysh suuraddan suuratu quraysh baa la yidhaahdaa waxay si gaara uga warramaysaa nicmadii iyo abaalkii ilaahay quraysh uu u galay ayay si gaara uga warramaysaa haddana nicmooyinkaa aanay ilaahay tabaaraka wa tacaala ku caabudin qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi liiilaafi qurayshin laamtu waa laamulcilla weeye sababta markay caadaysteen quraysh alulfu waa caadaysiga weeye horta eragu alulfu waa caadaysiga marka ilaahay wuxuu leeyahay liajli iilaafi qurayshin laamtu waa laamul yani ajli weeyaan liiilaafi qurayshin liajli iilaafi qurayshin quraysh caadaysiga ay caadaysteen darteed iilaafihim caadaysigooda ay caadaysteen rixlata shitaa'i wakhtiga jiilaalka safarka ay u baxaan wasayfi iyo wakhtiga xagaaga safarka ay u baxaan laba safar bay bixi jireenoo midna shaam bay ka soo hadhuudhsan jireen midna yeman bay ka soo hadhuudhsan jireen laba xilli oo midna jiilaalka midna wakhtiga xagaaga labadaa xilli bay safri jireen wax allaaliya waxay cunto u baahan yihiin iyo adduunna ay soo iibsan jireen wakhtigaa adduunyadu la isuma gudbi jirin oo waa la isdhici jiray laakiin maka cidda ka soo safarta walaa kuwa yeman walaa kuwa shaam may hungurayn jirin waxay odhan jireen baytullaahi alxaraamka ehelkiisii weeye oo ahlullaahiga xoolahooda ha taabanina weliba waxaa cashar fiican adduunyadu ay qaadatay markii ilaahay uu baabiyey abraha ee uu maxaanku idhaahda doonayay inuu kacbada ku duulo ee ilaahay shimbiraha ku salliday ayaa dib looga wada fadhiistay quraysh lama taaban jirin safarkooda caalamka kaloo dhan oo gaajaysan oo amni la'aan ku jira bay iyagu istiqraar iyo amni iyo dhereg ku jireen buqcadda ay ku nool yihiinna geed kama baxo geed la quutaa kama baxo waa buuro yani salsalloogan oo aan geed lahayn buqcadda sidaasaba haddana wax allaaliya wixii himaar adduunyada ka baxaysoo dhan la keenaya axad u badrheerayo oo jidka u joogsanayaana aanu jirin si gaara baa ilaahay u xanaanaynaya qoladan markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay liilaaf sababta safarka caadaysiga dheh quraysh caadaysigeeda darteed iilaafihim caadaysigooda ay caadaysteen rixlata shitaa'i safarka ay wakhtiga jiilaalka a safri jireen wasayfi iyo wakhtiga xagaaga labadaa safar haddaanay wax kaleba ilaahay ku caabudin may labadaa safarun qiimeeyaan labadaa ay caadaysteen darteedun falyacbuduu waxa kale ee nicmay haystaan oo dhan haba duugeen ee bal labadaas keliya darteed falyacbuduu ha ku caabudeen qurayshi rabba haada albeyti beydkan ay sharafta ku heleen rabbigiis uun ha ku caabudeen labadaa sababood labadaa safar alladii allihii ha caabudeen acamahum ka quudiyey min juucin aaggooda iyo gaararkooda waa lagu gaajoonaya iyaga ilaahay gaajadii waa ka quudiye wa aamanahum uu ka badbaadiyey min khawfin cabsidii hareerahooda ka taallay ee aan la isreebayn ee qabiil loo dagaalamay iyaga laguma soo duulay armay labadaa safar ee mar walba ilaahay u badbaadiyo ee beydkan ilaahay abuuray lagu xormaynay may labadaasun qiimeeyaan oo ilaahay ku caabudaan suuratulfiil suuraddii maroodiga suuraddan maroodigu waxay ahayd
ninkii la odhan jiray abraha ee xabashiga ahaa ee haystay yaman waxaa ku duulay nimankan xabashida waxaanay qabsadeen bilaad alyaman waxaanu markaa ka dhisay meesha la yidhaahdo sanca ayuu ka dhisay meel u eg xaramka iyo kacbada markaasaa wuxuu yidhi sanadkan wixii ka dambeeya lama tegayo maka halkanaa loo soo xajiyayaa arrinkii markaa wuu socon waayey wuxuu go'aansaday horta inaanu kiisani soconayn ilaa uu kaa dumiyo kiibuu ku duulay isagoo maroodiyaal badan wata ilaa 60,000 oo ciidanana wata arrinkii kamuu macaashine ilaahay baa ku soo duulay dhammaan 600,000 ee ciidanka ahaa habaa'an manhuuran buu ilaahay ka yeelay qaala allahu tabaaraka wa tacaala sanadkaa markaa dhacdadani ay dhacaysana waxa weeye 571 markay miilaadigu ahaa waana sanadkii uu nebiyullaahi moxamed dhashay calayhi salaatu wasalaam alam tara ay alam taclam miyaanad ka war haynin kayfa facala siduu yeelay oo uu ku falay rabbuka rabbiga biasxaabiilfiili kuwii maroodiga saarnaa siduu ilaahay ku yeelay waa xabashigii abraha iyo ciidankiisii siday ilaahay u galay miyaanad ka war hayn alam yajcal miyaanu ka yeelin miyaanu ka dhigin kaydahum dhagartii iyo shirqoolkii ay wadeen fii tadliilin wax habaabay oo aan meeshii loogu talagalay dhicin sow ilaah kama yeelin wa arsala calayhim rabbi wuxuu ku soo daayey dushoodii tayran shimbiro abaabiila raxan ah tarmiihim waxay ku gamaysay bixijaaratin dhagaxaan bay ku tuuraysay min sijiinin dhoobo la adkeeyey ah sijiin waa dhoobadu markay dhagax isu bedeshaa sijiin la yidhaah oo naar ah oo yacni dab xambaarsan wa arsala wuxuu ku soo salliday calayhim korkooda ciidankii abraha dayran shimbiro abaabiila koox iyo raxan u socda tarmiihim waxay gamayeen bixijaaratin dhagxaan min sijiinin dhoobo la dhagxeeyey ah oo dhagxaan laga sameeyey dhoobo dhagxowday fajacalahum wuxuu ilaahay ka yeelay ka casfin sidii bal iyo qaran ma'kuulin la daaqay oo kale oo markay madaxaa kaga dhufato madaxu wuu firdhaadhayaa dabadeedna waa iskailaaminayaa gaalkii neefka xoolihiina marka uu qaranka daaqayo iyo balka xaggaa sare uu ka calaliyaa markaasuu iligu uu kala firdhiyaa madaxa sare shimbir waluba 3 gantaal bay wadatay mid afkay ku wadataa labana lugahay ku wadataa shimbir waliba 3 cadow bay dishay markaasuu ilaahay ka dhigay ka casfin sidii bal iyo qaran ma'kuulin la daaqay oo kale suuratulhumas suuratulhumas baa la yidhaahdaa aayadaheeduna waana maki weeye aayadaheeduna waa 9 aayadood suuraddanu waxay digniin ka tahay xanta iyo dadka in la yaso oo bini'aadmiga kale inaad xaqirto oo aad xamato waa shay mamnuuca oo xaaraam ah waana nooca kibirka ugu sarreeyo aan ilaahay raalli ka ahayn wuxuuna yacni nebigaa la weydiiyey oo ninbaa wuxuu yidhi nebi allow waxaan jeclahay dhar qurux badan inaan xidho oo aan ragga ka dhex muuqdaan jeclahay taasi ma kibir baa nebigu wuxuu yidhi laa taa kibir lama yidhaahdo ina allaha ayibun yuxibu aayiba laakiin waxaa weeye kibirku batru lxaqi wa kamdi innaas inaad xaqa qaadan weydood diiddo dadka bini'aadmigaana aad xaqirtood yasto o aad xamato o aad liiddo taas baa la yidhaha kibir marka ilaahay wuxuu inaga reebayaa inaynu bini'aadmiga yasno oo xaqiro oo xamanno oo aan liidno qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi weylun tog naareed waxaa geli likulli mid kasta oo humasatin xambadana ah oo bini'aadmiga xamta oo carabka ku xanta lumasatin oo xanto oo isha ku xanta iyo sanqashada iyo sidaa yacni lumas waxa weeye waa midaan ku dhac lahayn oo qofka uu xamanayo wuxuu la xamanayaa qofka kale isagoo sansanqanaya oo carabka ku fiiqfiiqaya yaanu ku arkin hebelkaad xamanaysaa lumas baa la yidhaah iyo ninka badheedhahaba u xanta dadka labadaasuba naar bay gelayaan weylah alladii waxa weeyaan midka jamaca ururiyey maalan xoolo ayuu kasbadoo wuu ururshaa wacadadahu markaasuu tirakoobna ugu dhaqaaqay maalkaasuu urursadaa xoolahaasuu isagu addoon u yahayoo cabdulmaal weeye yaxsabu waxay la tahay anna maalahu xoolahiisani akhladahu inay waarinayaan si qaldan buu u fikirayoo wuxuu isleeyahay haddaad maal badan yeelato adduunyada waad ku waari
waana xisaab qaldanoo waxay ahayd inuu fiiriyo kuwii isaga ka horreeyey maalka badan haystay ma waareen iyagoo maalkii toonsan yahay oo aanu isticmaalin oo ka faa'iidaysan ayay ka dhinteen nin baa wuxuu lahaa baa la yidhi ilaa iyo 200 oo neef oo adhiya Soomaali buu ahaa wuu kabalaa waddankeena ka dhacday markaasaa wuxuu yidhi wallaahi aan caydhoobe inaan kaba ka iibsan adhigaas aan caydhoobe inaan kaba ka iibsan ayuu ku dhaartay hadduu neef intuu soo qabto wax yar uu ka iibsado wuxuu u arkayaa in xoolihiisii nuqsaamayaan waxaan u haystaa xoolahani inay noloshiisa ay mudamman ka dhigayaan ma ahan xooluhu qofka bini aadmiga ah nolosha mudamman ugama dhigaan waana xisaab qaldan in sidaa loo fikira yaxsabu wuxuu moodayaa anna maalahu maalkiisu akhladahu inay waarinayaan kallaa ha ka yaabina aaway qaaruun aaway kuwii adduunyada dhanka kale u rogay layumbadanna lawallaahi baan ku dhaartay laamtu waa dhaar lawallaahi baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi yunbadanna in lagu xoori oo lagu tuuri fi lxutamati tii burburin jirtay xatama wuu burburiyey wey markaa naaraha ilaahay mid ka mida waxaa la yidhaha alxutama tii burburinaysay maxay burburinaysaa lafta iyo luddaba way burburinaysaa wamaa adraaka wuu soo wadaa wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maxaad ka taqaanaa maa shayga ay tahay alxutamatu xutama waxay tahay maxaad ka taqaanaa burburiya taragtarka dul maraya ruuxa ee burburinaysa maxaad ka taqaan naarullaahi waa naartii ilaahay almuuqadatu ee la hurinayey naartii la shidayey ayaa la yidhaahdaa naartaa waxaa u sifaa allatii haddaan si kale kuugu dhigo allatii waa naarta taطalicu haabanaysa cala alaf'idati quluubtay haabata wadnayaashay u dustaa oo intay murqaha iyo lafahaba ka dusto oo laf iyo ludba dhammayso ayay wadnaha halkaa ka taaban doontaa aadamuhuna marka wadnihiisa la taabto wuu dhintaa laakiin marka aakhiro la joogo cadaabka ugu kululi intuu naarta uu qalbiga taabto aanu haddana dhimanayn waya'tiihi almowtu min kulli makaanin wamaa huwa bimayitin allatii waa midda taطalicu haabanaysa cala alaf'idati quluubtay haabata innahaa naartaasi mu'sadatun way ku awdan tahay way ku daboolan tahay calayhim korkooda oo waa lagu muufaynayaa hilibka marka la muufaynayo sow diskiga inta lagu dado dusha haddana naar kale lagama saariyo dhuxul oo halkaa kuma muufoobo halkaasay ku halacdhoomayaan innahaa naartaas calayhim dushooda mu'sadatun way ku qafilantao way ku daboolan tahay oo naqasku ka bixi maaye naqasku iyaduu dib ugu noqonaya si ay cadaab kulul u dhadhamiyaan fii camadin waxay ku sugan yihiin tiirar ay calaa camadin tiirar bay ku xidhxidhan yihiin tiirarka oo mumadadatin aad loo taagtaago cimri dheer taagnaanaya camad waxa weeye waa tiirka oo intoo la xidhxidho ayaa haddana tiir lagu xidhayaa markaasaa halasihii lagu shidayaa ilaa iyo qalbigay gaadhaysa ma xoqan karo ma nuuxsan karo ma dhaqaaqayo afarta adinba wuu ka xidhxidhan yahay haddana tiir buu sidaa ugu sii tigtigan yahay waa maxay qofka sidaa yeelay waa qofka maalka uu shaqaysanayay ilaah u arkaya ee isla kana wax kuu taraya ee aan ilaahay war u haynin ee cidduu doono ku durdurinaya ee cidduu doono xamanaya ee cidduu doono xaqiraya